السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي شيخ محمد ويا صومالي. waxaan rabaa inaan ka hadlo subaxan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo baraym sarkiisii waxay magacaabeen 74 wasiiro iyo wasiiro ku-xigeen iyo wasiiro dowlayaal. waa 74 25 wasiir 25 wasiir ku-xigeen iyo 24 wasiiro dowlo. intaasu waa 74. baraym ku-xigeen ku dar waa 75. baraym laftigiisa ku dar waa 76 wey. xukuumad ka kooban 76 ayaa maanta lagu dhawaaqay. ayaa shalay lagu dhawaaqay oo bishu 2 ahayd, maantana waa 3 oo 4. shalay oo talaadana waa lagu dhawaaqay. waayahay, waxaa laga rabaa 76daasu inay noqdaan dowlad wanaagsan. ciwaankayguna waxa weeye madaxweyne xasan maxamuud dowlad wanaagsan. waxaan ka soo horjeediyey 4.5 ganacsato iyo xalane shisheeyaha fadhiga xalane ayaan xalna ka wada. waayahay, warkeenna waxaa saldhiga aayadahan qur-aanka qaala tacaala, dhowr aayad oo qur-aano wey. waida aljaxiimu sucirat waida aljannatu uslifat calimat nafsu ma axdarat. saddexdaas aayad waxaad ku tafsirtaa 2 aayad oo kale. qaala tacaala liman sha'a minkum an yastaqiim wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu rabbulcaalamiin. labadan dambe saddexda horo aayad ku tafsir. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waida aljaxiimu sucirat. qiyaamihii baa la joogaa, naartii baa la hurinayaa, xoog baa loo shidahayaa si kuwii loogu talagalay loo geliyo u gubtaan. waida aljannatu uslifat, jannadana waa la soo dhoweynaya. lilmuttaqiin baa loo soo dhoweynaya, kuwa adduunyada ilaah kaga cabsaday. calimat nafsu ma axdarat. naf kasta waxay shirkiga goobta qiyaamaha la imaanaysaa camalkeedii, hadduu u fiicnaa iyo hadduu u xumaa. camalkii adduunyada ku soo shaqaysatay ayay qiyaamihii la imaanaysaa. hadduu u fiicnaado nasiibkeed, hadduu u xumaadana nasiibkeed. liman sha'a minkum an yastaqiim. qofkii doona waddada xaqa oo siraadu mustaqiimka ilaa iska leeyahay oo xaqa iyo wanaagga ha ku tooso. kii rabana ha ka leexdo oo waddada qalloocan ha qaato. wamaa tashaa'uuna, kii waddada toosan qaaday oo xaqa iyo kii leexday waddada qalloocan qaaday, labadaba wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu rabbulcaalamiin. kii toosay oo waddada xaqa oo siraad mustaqiimka ku dhacay oo toosana, ilaahay doonitaankiisa iyo mashiicadiisa ayaa arrintaas ku toosisay. laakiin asagoo caqli iyo dadnimo uu leeyahay iyo cilmi uu leeyahay midna kuma toosin. kii qalloocday oo waddada ka leexday siraad mustaqiimka oo waddada qalloocan oo xaqdarrada iyo baadilka u leexdana, loox maxfuud bay ugu qornayd, horaa alla ugu qadaray. asaguna camalkeedii xumaa buu la yimid. intaas oo ayadaa waxaan bays uga dhigaynaa hadalka soo socda oo raba shacabka soomaaliyeed inaan kula hadlo. madaxweyne xasan maxamuud iyo
xamse cabdi bare baraaministarka 74 xubnood waxay u magacaabayaan 4.5 qabiilooyinkii ayaa la qancinayaa qabiil kasta wuxuu rabaa inuu helo wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiiru dowlo saasaa 74 loo siiyey waayahay dowladu wanaagsanna waa la rabaa oo wasiiradaas 74 ku shaqeeyaanna waa la rabaa iyo xafiisyo ay fariistaan dhinaca kale 4.5 ganacsato iyo xalane saddexdaas waxay hortaagan yihiin dowladu wanaagsan oo madaxweyne xasan maxamuud iyo baraaministar xamse cabdi bare ay ku shaqeeyaan iyo wasiirada la magacaabay iyo wasiir ku-xigeenada la magacaabay iyo wasiir dowlayaasha la magacaabay 4.5 see u hortaagan yahay wuxuu u hortaagan yahay aadan cabdulla cismaan dowladdii 60kii ilaa 90kii dowladda maxamed saa bare 30 kaa sano dalka waxaa ka talinaysay dowlad ayaa maamulka dowladda gacanta ku haysay maamulka dowliga waxaa gacanta ku hayay dowladda 7 sano aadan cabdulla cismaan dowladdiisa ayaa dalka maamuleysay 2 sano barkii dowladdii cabdirashiid cali sharmaaka dalka maamuleysay 21 sano dowladdii maxamed saabare ayaa dalka dowladka oo maamuleysay 26kii January 91 markay dhacay dowladdii maxamed saabare ilaa hadda saacadan dowladda Soomaaliya maamula dowlad miya maamusha maya waxaa maamula 4.5 oo muxuu yahay shanta waaxood oo Djibouti waxa lagu qaybsaday oo 5 jifo oo Soomaali ah 5 lafood oo Soomaali ah 5 qabiil oo Soomaali ah ayaa dowladii haysata say u rideen maamulkii dowladda 91 iyagii baa diidan in dowlad la soo dhiso wanaagsan oo adag oo sharcigu uu shaqeeyo shacabkuna sharciga ka dambeeyaan qofkii sharciga ku xadgudbana tilaabo laga qaado ayagii shacabka ahaa baa diidan oo 4 qaybood 4.5 wuxuu qaybsanayay haddana waxay rabaan shantoodii 4.5 waxay rabaan inay helaan madaxweyne fiican inay helaan baraaministar fiican inay helaan dowlad wanaagsan dowladnimadiina ayagii baa diidan oo hortaagan waayahay see u hortaagan yihiin waxay u hortaagan yihiin ayaga horta riday Soomaha dowladdii maxamed saabare ilaa maxamed saabare markuu joogay waxaa shaqeynaysay dowladdii maxamed saabare waxaa shaqeynaysay wasaaradda maaliyadda waxaa shaqeynaysay wasaaradda gaashaandhigga waxaa shaqeynaysay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa shaqeynaysay wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta waxaa shaqeynaysay wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta shanta wasaarad ba ka soo qadabo tusaale ahaan waa yahay wasaaraddii maaliyadda say u burburtay 26 January 91 wasaarad maaliyad miya hadda shaqeysa Soomaaliya 3 August 2022 oo wasaarad maaliyad ba Soomaaliya xamar oo caasimad dalka ka shaqeysa haddaad haa dhahdo bangigii dhexe oo lacag shilin Soomaaliya uu ooli jiray dollarkuna ooli jiray sidii dowladdii maxamed saabare bangigu u shaqeyn jiray dhexe miyuu hadda u shaqeeyaa ama wasaaradda maaliyadda u shaqeyn jirtay miyuu u shaqeeyaa miyuu u shaqeysaa waa maya Soomaaliya hadda muqdisho oo caasimad ah wax lagu kala gataa dollar ba wax lagu kala gataa shilin Soomaaliya la soo daabacana dowladdii maxamed saabare oo 90kii ayaa u dambeysay dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la sheegayay Maarso 2023 ayaa laga yaabaa bangiga adduunka iyo IMF inay ogolaadaan inta deymiya cafiyaan in bangiga loo soo daabaco dhexe oo Soomaaliya in shilin Soomaaliya la soo daabaco oo shilin Soomaaliya ugu horreeyay Soomaaliya inuu soo gaaro Maarso 2023 kaasoo ku xiran shuruudo laga rabo wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe Soomaaliya inay buuxiyaan ilaa laga gaaro Maarso 2023 hadday shuruudaha ka soo baxaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe Soomaaliya markaas kadib ayaa la soo fasaxayaa shilin Soomaaliya la soo daabacayaa bangiga dhexena u shaqeynaya marka hadda bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda
dalka waxa haysta 4.5 shacabka haysta waxay ku haystaan xawaalado wax la yiraahdo ku haystaan ayaga dalka bangi ka ah oo qodobka koowaad oo wasaaradda maaliyadda waxa haysta shacabkii wasaaradda arrimaha gudaha maxaa hoos imaanaya amniga hoos imaanaya Soomaa wasaaradda boostada maxaa hoos imaanaya telefoonada isgaarsiinta wasaaradda amniga aanu soo noqon aan ku hormarno wasaaradda boostada oo isgaarsiinta hoos timaado shacabka haysta shirkadaha telefoonada waxa iska leh dad Soomaali ah oo 4.5 ka kooban qabiilooyinka ayaa iska leh Hormuud maxaan ku raahdaa Somalitel maxaan ku raahdaa inta telefoon magacyadooda aad wada garanaysaan Golis waxaasba waxa iska leh 4.5 Soomaalida shanta qabiil baa iska leh wasaaradda boostada marka ma jirto mana shaqeynayso wasaaradda boostada marka waxa haystay telefoonadii shacabkii baa haysta amnigii wuxuu ku xiran yahay telefoonada iyo xawaalada al-shabaab telefoonay haystaan al-shabaab lacagna waa u dhacdaa lacagta u dhacda yaa iska leh xawaalada iska leh xawaalada yaa iska leh 4.5 ka iska leh shacabka iska leh isgaarsiinta ay haystaan al-shabaab yaa iska leh shacabka iska leh 14 Oktoobar 2017 dadkii lagu qarxiyay lambar 4 oo kun qof ahaa ama 700 ahaa soobe telefoon baa lagu hagayay telefoonka lagu hagayay iska lahaa ma wasaaradda boostada oo dawlad control iska lahaa mise waxa iska lahaa dad shacab ah oo telefoonadii haysta sidii u burburtay wasaaradda boostada 26 January 90kii dawladda Maxamed Sabar dadka markii la dilay oo qaraxa lagu dilay iyo telefoonka qaraxa lagu hogaaminayo iyo lacagta telefoonada ay ku shaqeynayaan oo al-shabaab loogu tuurayo intaba shacabkii 4.5 ayaa haysta amnigiina waxa wuxuu dhimahaya xawaaladii iyo telefoonadii shacabku lahaayeen ayaa wuxuu dhimahaya oo qof kasta oo telefoon haysta lacagna ugu dhacayso oo amniga dalka wuxuu ugu dhimahaya waxay dib ugu soo noqonaysaa shirkadaha iskala telefoonada oo shacabka ah iyo telefoonada iyo shirkadaha iskala xawaalada oo shacabka sidaas ay marka wasaaradda boostada iyo wasaaradda amniga ay shacabka u haystaan oo dawlad ay gacan ugu jirin ay shacabka gacantooda ku jirtaa dawladii wasaaradda boostada iyo tii maaliyadda iyo tii amniga oo arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha ba amnigu hoos imaan jiray waagii dawladii Maxamed Sabar iyo tii Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo tii aan cadaw marka wasaaradda arrimaha gudaha ma shaqeynayso wasaaradda boostada ma shaqeynayso wasaaradda maaliyadda ma shaqeynayso wasaaradda gaashaandhigga imo suuqa bakaaraha hubka lagu kala gataa oo xamar ku yaala hubkana dawladda aadan Cabdulla Cusmaan maqaasiin buu ku jiray ciidamada ay leeyihiin ama militariga ama booliska ama asluubta ama nabad sugidda maqaasiinkii inta laga soo qaaday ayaa suuqa bakaaraha lagu kala gadanaya shacabkiina hubkaas isku leynaya qofkii qof ku xanaaqa suuqa bakaaruhu qoru soo gadan qofkii socdo 5 xabba ku dhufan cid wax ka qabanaysana male ilaa dawladda ma jirto hadii dawlad jirto hubkan bakaaraha lagu ma kala gateen maqaasimada militariga booliska asluubta nabad sugidda oo lilaha wasaaradda gaashaandhigana shacabkii baa haysta oo dawlad ma maamusho oo gacan dawlad kuma jirto wasaaradda ugu dambaysa garsoorka iyo arrimaha diinta dalkii kaniisada laga furay oo Kiristaan shiicaad ka furatay guryo ay dadka ku shiicayso kuwa gaalaha oo muslim sheegtay oo la yiraahdo Khadyaaniya oo Hindiya ka soo baxay 1800 oo Soomaali ah oo gaaladaas Khadyaaniintu lacag soo siiyeen ayaa xamar iyo meelaha kale mabdii Khadyaaniinta ka faafiya oo gaalnimo oo lacag dadka lagu siiya wasaaradda garsoorka arrimaha diintuna waxa ma control karto ninkan qoryo iyo qabiilkiisa wardiinaya Kiristaanka faafinaya midkan faafinaya shiicada qabiilkiisa baa la socda midkan qadyaaniya faafinaya gaalnimada qabiilkiisii oo qoryo wata difaacaya sida awgeed 4.5
oo qabiilooyinka waxay rabaan wasaaradda maaliyadda inay haystaan, waxay rabaan wasaaraddii arrimaha gudaha inay haystaan, waxay rabaan wasaaraddii boostada isgaarsiinta inay haystaan, waxay rabaan wasaaraddii gaashaandhigga inay haystaan, waxay rabaan garsoorka iyo arrimaha diinta inay haystaan. haddana waxay rabaan xasan maxamuud inay dhahaan wasiir nasiib, wasiir ku-xigeen nasiib, wasiir dowlad nasiib. prime ministerka waxay rabaan inay dhahaan xamsow wasiir nasiib, wasiir ku-xigeen nasiib, wasiir dowlad nasiib. wasiir ha laydin siiya shacabka soomaaliyeed 4.5 wuxuu qaybsado. wasiir ku-xigeenna ha laydin siiyo, wasiir dowladna ha laydin siiyo, laakiin wasaaraddii maaliyadda soo celiya, dowladda gacanteeda ku soo celiya. wasaaraddii arrimaha gudaha soo celiya oo dowladda gacanteeda ku soo celiya. wasaaraddii boostada isgaarsiinta soo celiya oo dowladda gacanteeda ku soo celiya. wasaaraddii gaashaandhigga soo celiya oo dowladda gacanteeda ku soo celiya. wasaaraddii garsoorka iyo arrimaha diinta soo celiya oo dowladda gacanteeda ku soo celiya. markaasaa wasiiradu meeshay ka yihiin 75 76 ka yihiin ayaa waxaa laga rabaa 10 ilaa 15 ugu badnaan inay noqdaan wasiiradu. wasiir ku-xigeenaduna ilaa 7 ama 6 ama 8 ugu yaraan 6 ugu badnaan 8 wasiir ku-xigeenno. 3-4 wasiiru dowle ayadoo dhan haddii la isku daro inaysan 25 ka badan gebigeeda dowladda, wasiiradeeda, wasiir ku-xigeenadeeda iyo wasiiru dowlayaasheeda. markaasay dowlad fiican oo shaqaynaysa oo dowladnimadii iyo maamulkiina gacanta dowladda ku jira, gacanta shacabkana ka baxay ayay noqonaysaa. dowladdiina dowlad quality leh oo shaqadii shacabku rabay qabanaysay noqonaysaa. marka waxaa hortaagan dowladnimadii 4.5 iyo qabiilooyinka oo dowladihii saddexda ahaa oo 60kii ilaa 90kii siday u shaqaynayeen oo maamulka ay dowladdu gacanta ku haysay ilaa 91dii gacanta shacabka galay, shacabkiina inay dowladnimo soo celiyaan diidan. sidaasaa marka 4.5 uu u hortaagan yahay dowlad wanaagsan, dowlad adag, dowlad shaqaynaysa oo shacabka u shaqaynaysa iyo shacab loo shaqeeyo dowladda uga dambeeya dowladnimadii oo ayuu shacabnimadooda ku ekaada. intaa haddaan kaga gudbo 4.5 ganacsato dadka aan sheegahaya oo haysta wasaaradda maaliyadda, oo haysta wasaaradda arrimaha gudaha oo amnigu hoos imaanayo, oo haysta wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta, waa ganacsatada. 4.5 ayay ayagu ka yimaadeen, waa qabiilooyin baa haysta. 5 qabiil oo 4.5ka ayaa wasaaradii haysta, waana nimanka ganacsadayaasha ah. marka waxaa hortaagan dowlad xoog leh, dowlad wanaagsan oo Soomaali dhalato 32 sano wax hortaagan waa nimanka ganacsadayaasha oo Soomaalida oo 5 qabiil ka kooban. waa inay marka ganacsadayaashu ay soo celiyaan dowladnimadii Soomaaliya oo gacan dowladda ku soo celiyaan, ayaguna ay shacab noqdaan, ganacsadayaal kaliya ku ekaadaan, oo wasaaradda maaliyadda soo celiyaan, wasaaradda arrimaha gudaha soo celiyaan, wasaaradda boostada isgaarsiinta soo celiyaan, wasaaradda gaashaandhigga soo celiyaan, wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta ay soo celiyaan. sidaasaa dalkeennu marka dalalka adduunka ula mid noqon karaa. sidaasaa World Bank iyo IMF-ka ay lacagtii cusbeed oo Soomaaliya shilin Soomaali lagu soo daabici karaa, deymihiina la kaga cafin karaa, cunaqabataynta hubka loo qaadi karaa, xuduudaha iska furan oo hubka laga soo gelinayo, oo daroogada laga soo gelinayo, oo khamrada laga soo gelinayo, oo jaadka 220 milyan ayaa 4 bari Kenya jaad ay keentay Soomaaliya ay nooga qaadatay oo Kenyan shilin ah. 220 milyan oo Kenyan shilin ah ayay jaadkii oo darooga ah intay noo keentay ayay naga qaadatay. jaadka hawadu ka soo galaya, baduhu ka soo galaya, xuduudaha biriga buu ka soo galaya. dowladdiina ma kontroli karto xuduudihii, ma kontroli karto badihii, ma kontroli karto hawadii. sababta awoodii lagu kontroli lahaa waxa haysta 4.5 oo shacabkii ah iyo ganacsato ayaa baawarkii awoodda dowladda wax ku kontroli lahayd kuwaasaa haysta. marka waa in ganacsatayaalow
si dalku dal u noqdo waa inaad dalka ku soo celisaan maamulka dowliga waa inaad ku soo celisaan oo adinku aad ganacsato kaliya ku ekaataan. ugu dambayn xalane nimanka fadhiya ayaa ka mas'uul ah 4.5 in loo kala qaybiyo Soomaaliya oo qabiil qabiil wax loo qaybsado. iyagaa ka mas'uul ah in ganacsato ay haystaan bawarkii dowladda oo dowladdu u diidaan awoodii dowladnimo oo ayagu dalka ayagoo ganacsata oo shacaba ay bawarkii dowladda ay haystaan oo gacmahooda ku haystaan ayna diidaan in dowladdu shaqayso ayagu hor istaagaan ayagoo kaashanaya kuwa xalna fadhiya oo shisheeyaha oo doonaya inaan dalkan dowlad ka dhalan si ay gaaska iyo shidaalka iyo macdanta iyo dahabka iyo uraniumka iyo khayraadka iyo malayga iyo wax walba u qaataan marka u dambaysan dalkan Ethiopia Kenya ku wareejiyaan. waa in laga saaraa dalka kuwa xalna fadhiya shisheeyaha oo ugu horeeyaan 20,000 oo ciidamada waa in laga saaraa 20,000 oo ciidamada oo reer Yurub ay keeneen oo Brussels laga masruufo waxaa loo keenay inaan ciidan Soomaaliyeed uusan dhismin. haddaan ciidan Soomaali dhisminna ammaanka dalka ma sugnaanayo. haddana dalka ammaankiisu ay sugnaan oo gacanta dowlad ku jirinna 4.5 oo qabiilka ah dowladdu kama adkaan karto. ganacsato qawleysata oo dhigmirata oo qarnimada iyo dowladnimada hortaagan dowladdu kama adkaan karto. dowladdu shacabka waxay ka adkaan kartaa dowlad xoog la noqon kartaa waa marka ay ciidan xoogan leedahay. ciidankiina waxaa hortaagan nimankan xallo fadhiyo Afrikaanka ah oo 20,000 oo nimanka Brussels fadhiyo Yurubka cadaanka oo raba dalkan inay xadaan dadkaana ay gumaystaan dalkaana Ethiopia Kenya ku wareejiyaan ayaa mushaarka siiya 1,300 1,500 askariga Soomaaligana 50 ama 100 ayay ogol yihiin ama shilinba uma ogola. haddaan anagu marka dalka leenahay Soomaali nahay marka ayagu reer Yurub iyo Brussels arintaas go'aan ka la gaaray anaguna ma go'aan gaarna anagoo shacabkii ah anagoo dowladii ah anagoo ganacsata oo isku duuban oo Soomaali oo dhan ah inay dalka nooga baxaan 20,000 Afrikaanka oo wadamada lagu celiyo waa kow. labo qolada meesha keensatay oo Yurubiyaanka oo reer galbeedka iyo waxa la waxay dowladda ku wataan oo Arab iyo Afrikaan ah inay xalna noo baneeyaan wadamadooda ay aadaan waxooda askara iyo waxooda jawaasiisa iyo waxooda shirkadaha dalka nooga baxaan. intooda safarada ka shaqaysana taajiriinta Soomaalida oo xamar degan hoteeladooda inay kireystaan ama se ay dhul gataan oo safarad ka samaystaan. haddaan dalka laga saarin xalana nimanka fadhiya oo Afrikaanka madow iyo nimanka kale oo reer Yurubka oo keensaday iyo Carabta reer galbeedku keensadeen iyo Afrikaanka madow oo reer galbeedka iyo Carabta ku daba gabanaya shisheeyaha xalna fadhiyadaan xal laga nadiifin ciidan Soomaaliyeed oo nabadgelyo dalka gacanta ku qabta ma dhismayo. haddaan ciidan gacanta ku qabta amniga la helinna wasaaradda arrimaha gudaha dalka wax kama qaban karto. wasaaradda gaashaandhigu dalka wax kama qaban karto. wasaaradda maaliyaddu dalka wax kama qaban karto. wasaaradda boosay isgaarsiintu dalka wax kama qaban karto. wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diintu dalka wax kama qaban karto. haddaba marka xaashi maxamuud haddii rabtay inuu wasiirro idin siiyo fara badan 74 buu idin siiyey. Prime Minister Xamse haddii ka rabtay inuu wasiirro badan idin siiyo 74 buu idin siiyey. laakiin 74 inay shaqeeyaan waxa hortaagan 4.5 oo qabiilooyinkii qarankii dumiyey 90kii 60kii January diidan inuu qaran dambe soo noqdo. wasaaradihii dalka oo lagu shaqayn lahaana guryahoodii xafiisyadooda ku haysta. niman ganacsadaha ayaa diidan inuu qarankii soo noqdo dowlad fiican oo Soomaaliya ay soo laabatay diidan oo u diidan in ayagu wasaaradihii shaqayn lahaa guryahoodii hoteelada ku haystaan shacabkana dhigmeertaan daroogo soo geliyaan chat soo geliyaan khamro soo geliyaan xashiis soo geliyaan hub soo geliyaan daawo dhacday soo geliyaan raashin dhacay soo geliyaan hub soo geliyaan hubkaasna shacabka iibiyaan shacabkuna isku laayo qabiil qabiil. sidaasaa marka madaxweyne xasan maxamuud iyo Prime Minister Xamse Cabdi Barre
ay idin magacaabeen Soomaaliya 74 wasiiro iyo wasiiro ku-xigeen iyo wasiiro dowlo laakiin dowladdii ma shaqaynayso haddaan 4.5 qaladkiisa uusan qaadanin oo uusan qarankii dowladda gacanteeda ku soo celin asagu burburiyey adduunka shacabka Soomaaliyeed ganacsatayaashu haddaysan ku soo celin dowladda maamulka dowladnimo gacantooda qolada xalna joogtana dalka laga saarin Soomaaliya 32 sano meeshay ahayd oo caawa tahay meel ka liidata inay aadam ahane meel ka fiican aadi mayso qaala tacaala liman shaa minkum an yastaqim qofkii raba ha toosoo wadada ilaahay uu u jideeyay inuu ku socdo ha ku socdo kii rabana ha dhinac maro wada qaloocan ha qaato markaas Abu Jahl wuxuu yiri ilaahay istiqyaar buu nasiyo wuxuu yiri qofkii toosayo wadada siraad mustaqiimka ku dhacayana ha ku dhaco wadada toosna qaado qofkii qaloocanayna ha qaloocdo marka istiqyaar bana la siiyay hadaan qaloocanayna annaga go'aankanaga qaloocashada qaadanayna oo istiqyaar baa ilaahay nasiiyay hadaan toosaynina ilaahay istiqyaar buu nasiyo waa toosayna marka annaga nagu xiran tahay ilaahayna muxuu ku xujiyay wama tashaa'una illa an yasha Allah rabbul alamin hadaan ilaahay usan ku fuudeynin oo wadada xaqa kugu duwin oo wadada toosan kugu duwin aduu cilmi iyo aqli aad leedahay iyo way arnimo kuma toosi kartid marka ilaahna hala baryo qaladkana ha laga soo noqdo sababtu waxa dambaysa waydal jahimu su'irat waydal jannatu uzlifat alimat nafsu ma ahdarat shacabka Soomaaliyeed warkayga ku saabsanaa 74 wasiir oo magacaabay Xasan Maxamuud iyo Ibraahim Sar Xamse oo rabo dalka inay u shaqeeyaan dawlad fiicanna uu dalku yeesho waxa hortaagan baan idin warkayga maantay subaxan 4.5 baa hortaagan ganacsatada Soomaaliya baa hortaagan nimanka xalna fadhiya oo reer galbeedka iyo carabtii Afrikaanka ay noo keensadeen say noo gumeystaan dalkana khayraadkiisa u xadaan annagana noo laayaan Ethiopia Kenya dalka u wareejiyaan khayraadkiisana ay qaataan oo xadaan intaasoo maanta ku egyahay hadda waqtiga London subxigii baa aniga ii soo galay intaasay noo joogaysaa adinku subxigiina haddaad tiin Soomaaliya kuwa joogana waa tukateen Amerikana waa laga hurdaa qoladan reer Yurubkana subxigii baa noo soo wada galay intaasay noo joogaysaa waqtigii dambe alle soo celiyay wixii kale oo program aan ka hadlahayo ayay noo ahaanaysaa wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh